ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa mar kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble. Gaas ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aanada isdiidan ee ka soo kala baxaya labada dhinac waxaana uu tilmaamay in labaduba ay iska kala baxeen amaba ay gebi ahaanba ka baxeen xindaabka dowladnimada. sidoo kale waxa uu ku taliyay in kiiska Ikraan Tahliil Faarax ee sida weyn la isugu hayo loo daayo hay'adaha ku shaqo leh gaar ahaan kuwa cadaaladda. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in guusha ra-iisul wasaare Roble ay kaliya ku jirto in uu dalka ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah. bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa nasiib darro sida hogaankii dalku uu dhaqmayo waxaan moodaa hadda in labadooduba xayndaabkii dowladnimada la iskala baxay isqabqabsigoodu wuxuu dib ku yahay dowladnimadii wuxuu dib ku yahay socodsiintii hawl maalmeedkii dowladda doorashadii la filayay dalku inay gasho dhacdo oo dadka hadda dhan loo wada jeestay oo nidaamka dawliga ah oo hadda waxa lagu sii jeeday in doorasho dhacdo isbedelna uu yimaado laakiin waxa moodaa arintani isqabqabsigoodu aad moodo in sabab looga dhigayo gabadhan la diray ilaahay u naxariisto Ikraan Tahliil Faarax Ibrahim dabcan waa inay hesho cadaalad waa in laga gungaaraa hawshaasna loo daayaa cidda shaqada kule oo ah cadaaladda xeraaliyaha day tahay ciidan ahayd maxkamadda ciidamada iyo hawsheeda loo daayo marka waxaan moodaa gabadhii hadda in ay noqotay ka hadalkeeda iyo hawsheedu ay noqotay la soo isticmaalayo oo qolaba aad moodo inay say doonto arintan ay u isticmaalayso marka anigu waxaan oran marka madaxweynaha nabad sugidda oo saaxiibkii madaxda ka ahaa ayaa lagu tuhmayay gabadhan aniga waxa ila ahayd in uu completely arintaas ka iska faraha kala baxo hay'adaha cadaaladda u daayo sababtoo ah waxay tirahdeen inuu xulaab xun inuu xaqaasanayaa la moodaa haddii gabadhan dilkeeda aysan shaqo ku lahayn waa inay iska fogeeyaan una dhaafaan cid shaqo ku leh laakiin saad sheegtay isu jawaabidda la isaga jawaabayo rasaaruuna ku jawaabayo mataqaana kana wax ku magacaabayo kana ku jawaabayo miidiyaha waxay ila tahay wax laga aad loogu qorxoon yahay waayahay marka ra-iisul wasaare hadda madaxdii labadii xafiis madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyagoo ku kala jira dhismayaal isu muuqda haddana warqado isugu jawaabayaan in marka khilaafka iyo doodda arrintaa la egnay bannaanka sidaa ugu soo baxdo warqado la isu soo qoro midba midka kale kadib warqad uga daba maro maxay dowladnimadii Soomaaliya uga dhigan tahay maxay sawirahaysa ka bixinaysaa labada xafiis iyo madaxda wallahi dee waxay noqonaysaa labadooduba in ay arrintaasi ay dib ku keento mustaqbalkooda siyaasadeed labada sababta waxa weeye horta sidaadaba ha dhowto markii waxaanay qasmaan oo ay sii xumaato oo baraka meel gaarto saada ay ku sii socotaba la oran mayo hebel baa fiicnaa hebel baa sax ahaa labada qof dhowtay eedaysanayaal bay noqonayaan ra-iisul wasaaraha waxa marka anigu kula tan lahaa isaga in uu hadda maadaama awoodii u badnayd la siiyay dhanka doorashada in ra-iisul wasaaraha guushiisa iyo guuldarradiisa siyaasadeed waxay ku xiraanaysaa inuu doorasho saxa qabto marka waxaan oran lahaa gabadhan kiiskeeda sida hadda aan iriba loo daayay hay'adaha cadaaladda madaxweynuhuna faraha kala baxo ra-iisul wasaaruhuna ha u jeesto qabashada doorashada guushiisu iyo guuldarradiisu waxay ku xiran tahay doorasho sax ah oo lagu kalsoon yahay oo dadka Soomaaliyeed u wada yaqaan oo cadaalad ah in uu sameeyo guushiisu kuma xirra ka gungaaridda Ikraan Tahliil guushiisa siyaasad kuma xirna laakiin Ikraan Tahliil waa inay heshaa cadaalad haddana dee adduunka dhan baa ku soo jeeda Soomaaliya dhan baa ku soo jeeda kiiskeedu meel la'aan ma dhici doono laakiin waxaa loo baahan yahay marka inaan lagu mashquulin arrintan aan aad la isu raacine hay'adaha ku shaqada loo daayo isaguna soo u ekaanin inuu isticmaalayo uu kula dagaalamo Farmaajo dadaaladii nabadda socday oo siyaasiyiin iyo odayaal qaarkood ay wadeen madaxda dowlad goboleedyadu ay ka mid yihiin sida muuqata hadda guul kama soo bixin hay'ad sharciyadeed oo kale oo arrinkan soo dhex geli karaysa oo xal u keeni karaysa ma ku muuqata dabcan hay'adda sharciga u lahaanad arrinta waxay ahayd maxkamadda dastuuriga ahayd iyadiina ma jirto lama sameyn hay'adda dastuuri ah oo dastuur ah lagu kala baxayo ma muuqato dastuur nin walbaaba isagu suudan u fasiranayo qodobku isagu isleeyahay waxay ku siinaysaa mataqaanaa iyo sabab mataqaanaa ku doodo ayaa nin walbaaba isticmaalaya oo jeedaa nin walbaaba dastuurka qodobo ka mid soo daliishanaya marka hay'addii kala saareed maxkamadda dastuuriga ahayd iyadiina ma taalo marka waxa weeye waa in cid kale ay timaadaa oo nasteexaysa labadaba waxa kale loo baahan yahay saacadan oo kale in uu yimaado barashar caalami ah sababta waxa weeye
waddankan dad ayaa ku bixiya kharash aad u tira badan balaayiin dollar baa lagu bixiyaa nabadgelyada anagu maanta mas-uul kama nihin amisom baa joogta oo ilaalinaysa xafiisadooda mataqaana ugandhis baa nin walbaaba ilaalinaya yani marka waxaan u baahan yahay barashar caalamiga inuu yimaado oo aad moodo hadda midka keliya oo labadoodaba ay ka baqi lahaayeen si aniga ila tahay wey